waa maxay falsafad ama faylasoof? Falsafaddu waa gungaarka shay kasta ilaa laga ogaado xaqiijinta jiritaanka shayga. Weydiimaha falsafadda waxa ugu waaweyn 3 weydiimood. Midda koowaad waa jiritaanka shay kasta bilow ilaa dhammaad si loo sugo jiritaankiisa ama loo diido. Midda labaadna waa aqoonta iyo ogaalka iyo sida xog kama dambaysa looga samayn lahaa qaabka aan wax u ogaanno iyo sida aqoontu noo soo gasho. Midda saddexaadna waa inaad isweydiiso sax iyo qaladka, wanaagga iyo xumaanta, waana halka faylasufyo badan ku lumeen ayagoo istusay inaysan dunida ka jirin wax sax iyo qalad la dhaho, balse adduunka ka jiraan wax la isla ogol yahay iyo wax la isla diidan yahay, taasoo ah xeerar bulsho. Fikirkaasna waxaa naqdiyey faylasufyada wax ku sifeeya fikradda saliimka ah. Falsafadda ama faylasoof waa 2 eray oo Greek ah, philo iyo sophia, oo macnahoodu yihiin jacaylka xigmadda. Falsafaddu waa meesha ugu sarreysa ee xigmad raadinta laga gaaro, waxaana jira darajooyin ka hooseeya, waxaana ka mid ah suugaanyahanka iyo murtimaalka xilli-yaqaanka ah iyo wixii la mid ah. Falsafaddu waxay shay kasta saaraysaa su'aal ilaa jawaabo sax ah loo helo. Qofka falsafadda xiiseeya wuxuu markasta su'aalo ka keenaa shay kasta ilaa uu xaqiiqada ka ogaado. Waxaa jira faylasufyo badan oo ilxaad iyo gaalnimo u horseeday falsafaddu markii ay ka shakiyeen jiritaanka Alle, halka kuwa qaarna ka shakiyeen naftooda iyo in ay yihiin dad jira oo nool. Waxaa jira faylasufyo badan oo Muslim ahaa, waxaana ka mid ahaa Imaamul Ghazali iyo Ibnu Sinaan iyo Ibnu Rushdi oo falsafadda ku xeel dheeraa. Faylasufyada ugu caansanaa falsafadda caqliga suubanna wax ku baari jiray laguna tirsho aasaasayaasha falsafadda waxaa ka mid ahaa faylasufkii Gariiga ahaa ee qaab nololeedkiisa iyo fakarkiisuba saamaynta weyn ku yeesheen falsafaddii hore iyo tan casriga ah. Socrates ama Socrates oo noolaa dhalashadii Nabi Ciise qarniyo ka hor waa faylasuf xigmado iyo murti dhaxalgal ah laga qoray, wuxuuna ka mid ahaa faylasufyada aysan ruuxin maskaxda iyo caqliga ku jira, kala saarayna saxda iyo qaladka, khuraafaadka iyo runta. balse haddaad Muslim tahay, su'aal kasta oo falsafi ah ood isweydiiso waxaad jawaab uga heli kartaa diinteena Islaamka. Inaad fikirto oo maskaxda aad rogrogto waa shay diinta ku bannaan, balse su'aalaha qaar ha ku tarax tegin oo kaliya ka fikir inta aqoontaada diintu gaarsiisan tahay. Haddii adoo jaahil ah aad isku daydo inaad faylasuf noqoto, waxaad u dhowdahay inaad xadgudubto sida kuwa badanba u xadgudbeen. Inta badan faylasufku waa qof xog ogaal ah, wax akhrisna badan, baaritaankiisuna aad u sarreeyo. Haddaba maxaad ka taqaanaa faylasufyada Soomaalida?